qof kastoo aadan oo dunidan jooga inuu maalin ka bixi doono. ilaahina subxaanahu wa tacaala isagoo xaqiiqada sugaya buu nebi maxamed wuxuu leeyahy innaka mayitun wa innahum mayituun. diciduu nolol loo dayn lahaa sayidulmursaliin baa nolol loo dayn lahaa. walidaalika baa ilaahay wuxuu leeyahy innaka mayit, nebi maxamedow adigu mid dhintay ama mid geeriyoonayaatay, iyaguna waa kula mid baa ilaahay leeyahy wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in mita fahum alkhaaliduun kullu man calayha faan wayabqa wajhu rabbika duljalaali waalikraam. idan adduunka waa laga wada tegayaa, waxaana la wada rumaysan yahay haadihi daar hiya daaru mamar, wadda inay tahay. qofka socodka ahi waddada uu qaado inay la mid tahay. su-aasha adag ee u baahan qof kastoo bini aadam inuu isweydiiyaa waxay tahay famaada bacda almowt. tan inaad ka tegaysa waad ogtay, waana la hubaa. hortaana dadkii soo maray waa ka wada tageen. maxaa geerida ka dambeeya? ilaahay wuxuu qur-aanka ku tilmaamayaa qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum. geerida ka baxsanaysaane ka ordaysaan waa idinla kulmaysa. bini aadamku geerida ma jecla. meel yari markay ku xanuunto xagga dhakhtarkaad u cararaysaa. waxaad hanti haysatoo dhan baad ku bixinaysaa. waxaasoo dhammina waa uun geerida, bal haddaad dib u dhigi karta inaad dib u dhigto ama inuun inaad ka baxsato. ilaahina wuxuu leeyahy qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum. waa idinla kulmayaa geeridaasi. maxaa ka dambeeya? uma turadduuna ilaa caalimi alghaybi waashahaada fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun. waxaa ka dambeeya waxa weeye in rabbi lays hortaago. kullu nafsin daa'iqatu almowt wainama tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can الnaari waudkhila aljanna faqad faaz wama alxayaatu dunya ila mataacu lguruur. idan geerida waxa ka dambeeya waa alwuquufu bayna yaday illaahi subxaanahu wa tacaala. ilahay inaad is hortaagto. waxaa ka dambeeya waa ima aljanna wa ima annaar. walidaalika baa ilaahay wuxuu ina leeyahay aayaadkaynu mar kastaba akhrino yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. war ha dhimanina baa ilaahay ina leeyahy idinku aan muslim ahayn. walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. aadanuhu geerida wuu ka warwareegaa, laakiin waxay yidhaahdaan aqrabu shayin huwa almowt. waxa kuugu dhowi waa geeri. abcad shayna bay yidhahdaan huwa alamal, waa rajo iyo dadku waad sii noolaan doontaa. arja shay fi lxayaana huwa alcamal, waa waxaad shaqaysato. wax loogu rajo badan yahay waa waxaad shaqaysato. daba maxaa ka hortaagan bini aadamku xaqiiqada uu og yahay inuu u diyaargaroobo? ulaha hiya alghafla. waxaa koowaad aynoo diidan inaynu diyaargarownaa waa alghafla, waa dhoohani, waa moogani. waa adigoo alxaqaa'iq alkubraa ismoodmoodsiinaya, raba inaanad xasuusanin, adigoo aan rabin inaad aakhiro xasuusan, adoo raba inaad janniya naar xasuusan. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun maa yaatiihim min dikrin min rabbihim muxdathin ila istamacuuhu wahum yalcabuun. ilaahay wuxuu ina leeyahay dadka waxa ku soo dhowaaday xisaabtoodii, in lagu xisaabinayo. maxaa lagaa xisaabinaya? waa kastoo bariya, daqiiqad kastoo ku soo martaa lagu xisaabinaya. waxaad qiyaastaa waxaad soo noolayd, waxaad soo qabatay, waxaad soo jirtay, waxaad ku soo fakartay, waxaad ahaan jirtay, waxaad qabatay oo rabu samaawaati waalardi uu ku weydiinayo. oo lagu yidhi weliba ilaahay hortiisa ka dhaqaaqi maysid. qadamaa cabdin yowma alqiyaama ma dhaqaaqayaan ilaa yaa as'iladaa la weydiiye mooyaane. ilaahayna wuxuuna leeyahay dadka xisaabtii way ku dhowday, iyana waa ghaafiliin.
ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث حق الرب قودوا قما يماده وانو عصب أو إلهي دنكي سكتمي إلهي وحي مقلان يقول ولع عيارتك وشربا إليه إلا استمعوه وهم يلعبون دقوا هذا وحي سوقاده يقول ولع عياريا ولاهية قلوبهم با إلهي سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذن أيها الأحبة آفاتك قوة وينك كان إنو دتك الديار نقوم وايو كانت دتك إنو آخر حسوسا وايو كانت دتك إنو حباشي أرك كري وايا إيادو الدنيا دتك هو سيكب بدن يدتك صارا مقالك است مقالة كردين على سماك بدن هدانا بني آدمكو إنو دارها أركي حبالها أركي كري وايا وحجب قبطة وحدين عاقة كتشرة دad jiifa inaad arki kari weydo ee daarta ay kuu muuqataa waa mashkilad yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun kuwa ilaahay ka gaaloobay baa ilaahay wuxuu ku tilmaamay daahirka noloshay garanayaan baa ilaahay yidhi ama aakhira iyo xaggeeda waa ka moogan yihin waa dhoohan yihin sida awgeed ayaa axadu saalixiin أي بغراد المسلمين تنين كم يدي وحكو يدي لماذا نكره الموت حانو جاري دون عنابو يدي تبتنا وحكو يدي عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة وتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الخراب أدونك عمرتين بو يدي شغدينا شغاء دون نغطي آخرنا وحبيس كما يدان هو الرئيسيني marka waa loo jikbuulay inaan nacdaan ina meesha camiran ka tagtaan oo meelaan waxba idin ka horeeyna qabataan waa nacaysaan buu ku yiri ayuha alahibba bini aadamka wuxuu noqday fikirkiisu fikir adduunka maxaan qabanaya maxaan helaya maxay soo galaya hatta wa huwa yusalli hatta markaynu salaada ku jirno shanta daqiiqo inuu ilaahay soo taagno shantaana waxaynu xisaabinaynaa adduun وعقلنا كجرا بل قد نحلم بها وكريونا بني آدمكو وحا اكتسا يالوم كريونا هذا ريوين كي صحابة دبقوا النقطين نبقوا فسيري جري نبقوا عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح مركو تكده أيوه حورين جري من منكم رؤيا وارحل إياه وحركي قسي صحابة وشي جرين وحي أركين دبتنو فسيري جري ريوين كا هذا دبقوا النقطة كتب الحديث انت بدن جنة إيا النار إيا آخرك والرمية انت ugu badan le wax diin ku saabsan bay ka waramayaan waana markii aadaanka ku riyooday kan ku riyooday aakhiro inaga laakiin riyooyinkeena hadaynu iswaraysano dhana war bal maxaa ku riyooteen waxay u badan tahay dhammaanteed inay adduuntay yani qofku wuxuu mahmuum ku noqdo ayay ruuxdiisuna la tacaamushaa walidalik ayaa waxay yaraaday waxaynu aakhiro u qabsanayno waxaynu ula baxnay waxaynu fikir aakhiro geysanay waxaynu waqti geysanay waxaynu hanti geysanay waxaynu beerannay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa gharsi alaakhira jannada beerteeda sida loo boorto subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha illa allah wallahu akbar kuwan baa lagu beeraa beerta adduunka waynu ka fikirnaa lacag bay u baahantahay waxaan bay u baahantahay inaynu beera samaysano adduun waa jecellay laakiin beeraha aakhiro guryaha adduun inaynu dhisno waa jecellay laakiin nebigu wuxuu tilmaamay aakhiro guryaheeda si loo dhiso walidaalika ayuha alaxiba ninkii muslimka ahaa ee caalimka ahaa baa waxaa la weydiiyey ninkii baa wuxuu yihi famal camal haddaa bal maxaanu qabanaa bal sheeg wuxuu ku yidhi naftaada ilaahay kitaabkiisa u bandhig إلهي كتاب كيسو حلي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بغر كي سليمان لورنشري وركان صومالي دو قالوا مركان نكي ويدي أين رحمة الله بيري دبتنا الشيخ وحوق جوابي إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين وأنا إلهي نحرستي سادتك قصر سابولي ماذا إلهي نحرستي سي وحيد إلهي قرآن كو حكو إلهي نحرست الله
kuwa samaha sameeyay u dhowdahay. idan ayuha alaxiba, maxaa aakhiro gaafilka inooga dhigay? dhowr sababood baan tilmaami doonaa. ta koowaad waa tuulu lamal, waa amalka yididiilada iyo rajadaynu qabnoo dheer. qof isla aroortaa naftu kaa baxaysaa miyuu nagu jiraa? qof waliba wuxuu isleeyahay insha allah cumr madiida kollay waxoogaabaa hadhay dambood xagga dambe ka shaqaysato. qof isla aroortaad dhiman ama barraad dhiman ama bisha soo socotaad dhiman ma jiro. waxaynu is wada leenahay oo madaxeenna ku jira insha allah kollay waxa hadhay waxaad wax ku qabsato waa dambeeya. ilaahayna wuxuu ina leeyahay innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiban baa ilaah yidhi. iyagu waxay u arkaan aakhira iyo qiyaamaha iyo geerida iyo waxaa baciid, mid fog. annana waxay noogu muuqataa baa ilaahay leeyahay qariib, mid aad u dhow. sidaa awgeed baa kuwii gaala markuu alle ka warramaya wuxuu yidhi darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun. ilaahay markuu kuwa gaaleed ka warramayaa la yidhi iskaga tag nebi maxamedow, ha cunaan oo ha birbidhsadaan oo ha ku raaxaystaan, oo wayulhihim alamal, rajada ha ku badadaashaan. waxay sidhaha kollay dee cimriga fusxa ka hadhaye xagga dambe insha allahu tacaala ayaad wax ka qaban doontaa. fasawfa yaclamuun baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. imaam alghazaliy raxmat ullaahi calayh ayaa wuxuu leeyahay rajada dheeri, amalkan dheeri, yididiiladan fogi, laba shay unbaa waa asale buu leeyahay: aljahlu wa xubu dunya. waxa keena waa adduunyo jacayl oo qofku baasha dhadhankeeda iyo macaankeeda iyo ay la fiicnaato, aakhiriya waxa ka dambeeyana uu ilaabo. ilaahayna wuxuu leeyahay bal aayaddan u fiirsada: man kaana yuriidu alxayaata addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika laysa lahum fi alaakhirati ila annaar waxabita maa sanacuu wabatilun maa kaanuu yacmaluun. ilahay wuxuu leeyahy man kaana yuriid, ninka adduun jacayl qaado, ninka adduunku mashquuliyo, wixiisu adduun yihiin. iraadat اdunya baa waxaa lagu xidhay ulaa'ika laysa lahum fi اlaakhira ila الnaar. ka labaadna waa jahli, waa qofkaoo jaahil ka noqda waxa dambeeya, waa qofkaoo jaahil ka noqda xaqiiqat اdunya. wargaaladan filosofarada sheegta qaar ka mid a ayaa waxay u arkeen nolosha inaan waxba qabanin, waayo wuxuu leeyahy de waan ka tegayaa. maxay qiimo samaynaysaa buu leeyahy? addunya kullaha cabath, alfalsafa alcabathiya. waxay leeyihin maxaan qabanayaa? wax kastoo aan sameeyo soo barri dhiman maaya buu leeyahy. dan waa inaan iska daayaa waxeedoo dhan. waaxid minhum ayaa islaantiisii dilay baa la yidhi iyadoo faraxsan, iyadoo qosol isoo arkoo dabeetana wadnuhu jaray, miduu geliyey. waa faransiiskii filosofkii ugu weynaa faransiiska wakhtigii uu giskaadh xukumayey. islaantuu qabay buu dilay. falsafa alwujuudiya maxaa dhacay baa la yidhi. weliba markuu dilay buu booliska la hadlo wuxuu yidhi waxaan dilay xaaskii, markaa boolisku shaqadiisa ha qabsado. waa la qabtay, waa la maxaa dhacay? waxaan arkay buu yidhi iyadoo faraxsan, markaa waxaan sidhi buu yidhi kollay dee halkan wax kale ma yaaliine iyadoo faraxsan un ha ka tagto, nothing else, wax kaloo tan yaallaa ma jiraan. ee laxdadda ay faraxsantay kollayba hadday ka baxayso iyadoo faraxsan ha ka baxda baan sidhi buu leeyahy. ilaa madaxweynaha kayskii la gaadhsiiyey caqlu faransa la xidhi kari maayo baa la yidhi see la yeelaa. waxay yidhahdeen musaxaadka caqliga iyo meelaha balaangeyneelan waa ceeb in la yidhahdo france baa xidhay caqligeedii waa wax ceebe. waxaan uga dan leeyahay adduunka haddaad xaqiiqadiisa garan weydo, kaasi xaqiiqatu dunya wuu gartay, laakiin xaqiiqatul aakhira buu garan waayey, maa bacda almowt buu garan waayey. adduunku wax laysku mashquuliyo inaanay ahayn wuu gartay, wax weyn inaanay ahayn, laakiin wuxuu garan waayey famaa bacdaha, maxaa ka dambeeya. ayuha alaxiba,
فرق باو دحيا أملك هي الرجدة هي الطمع بين هذا في اللغة العربية أملك واحد هذا وماشى آد أدركسن يعني ترجين إننا تهرو قاعدو طبعا هو ماشى قريب كأبيد هذا أنا مركبات سلادي وتقارس رجدنا وماشى دحدحات كأبيد هذا نبي إبراهيم مركو إلهي وحاكتي سيال له ونقريني يمحولها والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلهي قاعد يسوي حكو جرا وأحلى الرجاية وأحلى طمعه دابا أيها الأحبة أملكم إن أستري هذا اللي من ميسي أنا أستري هذا وقت باقوها رأينا سوا حكينا وإما الجهل وإما حب الدنيا بين هذا وجاهل لمو أما الدنيا شعير لبضتنا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وفراش يركو شيفه صلي وصلي وكيا لا علامديسي صلي markaad ku seexato adigoo feedha qaawan waxa kugu sawirmaya xariijimaha salligu leeyahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam qiyaas oo salli inta ku seexday salligii uu ku sawiran yahay calaamadihiisi adduun sallu kaga jiifaa ma hayno adduun waayey saxaabadu iyo nabiga alayhi salaatu wasalaam waqti aanay waxaysanin iyo waqti ay waxaysteen labaduba waa soo maray laakiin adduunkan marnaba qalbigooda gelin ee gacantooda ku jiray ولذلك ابو عمر وحكوا يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوفر من هذا ما فراش يرو كان كفي عن يالت حديث ابن حبان باورنا يا شيخ الألباني حسن صحيح وكنت المامية يا عمر ما لي وللدنيا وما للدنيا ولي والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب صار في يوم صاف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها النبي يقول عليه الصلاة والسلام عمره أنا إيا أدون محانا قد حيا أدون يا نقا محانا قد حيا إلها نفتيدو قعنتي سكو شرطان كل دارتي أدون ميو يهيبا تساليه سو ننصع طاء ومالين حقايا صعدة وقيد حد صدي saacad geed harsadoo dabeetana ka tegey kaas caqligiisa haddaad aduguba iska soo qaadaad socoto ahaan lahayd oo cadceeddu kugu kulaato oo aad geed istiraata harso maxaad ka fakeri lahayd ma daara ka dhiso ma furshaan dhigdhigo maxaad ka fakeri lahayd caqliyadda kuwan adduunka jecel waa la daba qaadaa furshaanta iyo wax oo dhan oo dee taambugiyo iyo furshaan iyo waxbaa loo dhisaa laakiin alinsaan alfitriy bini aadamka caadiga ah dadka maanta dunida jooga qaar baa jira daaraynta ay dhistaan hal habeen sanadkii u hoyda laakiin bini aadamka fitradiisii aanay xumaanin wuxuu u fakaraa okay waa isku mid inaad dhinaca dhigto iyo inaad salli dhigato iyo inaad iska yara jiifsato sidasay mar haddaad saacad kadib aad ka kacaysay ihtimaam badan ma siiyo geedku saacad hoos joogayo siduu hoos joogayo wuxuu nabigu leeyahay anigii adduun saasaan isku nahay rajadan dheer ee bini aadamku iska dhaadhicina sideedaba qur-aanka marka la joogo waa madmuum afarayta in matacnaahum siniin ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون كورن با إلهي لي ددكن هدانو الرحيم سنده سنده الله بديو لكن هو يما دمركا وحي لو يبو هينا وكدن بيو ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون با إلهي كتلمامي ولا تجدن أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يهود با إلهي كورمي يقوى مشركين تبا وحي جعليه كن سنة ضد دي عمري سقفك لغا دغ لها حتى هدي كن لغا دغ با إلهي لي ما كن با كاعل النار وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إلهي وحين المامة يا سبحانه وتعالى كوا مؤمنين تايميا وقت آني قارن قلوب تودو أي خشوع دبا إلهي دو إلهي ذكر جيس
iyo waxa xaqa la soo dejiyay u khushuucaan oo aanay la mid noqonin baa ilaahay yidhi kuwii kitaabka la siiyey oo fataala calayhim alamad wakhtigu uu ku dheeraaday dabeetana wakhtigii loo dheereeyey qalbi-eenka ka qaaday ayuha alaxiba adduunka استرسال الآمال الملهية عن طاعة رب العالمين ما هو حبنان ولذلك لكن وما لها الله ينقوي تحامي نبي حلي عليه الصلاة والسلام لا يزال قلب الكبير شابا في اثنين في حب الدنيا وطول الأمل النبي حلي عليه الصلاة والسلام كما الزول أيه قلبك قفك ويني laba wali waa ka dhalin yaro yani daada doonta gaad 60 70 80 inta doonta gaad qofka weyn qalbiga laba shay waa ka dhalin yaro buu nabigu yiri waa labadee waa xub dunya iyo طول الامل adduunyo jacaylka lagama gaboobo qofku si kasta uu gabowsan yahay adduunka uu jecel yahay rajadana lama dhigo amalka waxba haray dad sagaashan jirto waxba hadhay u badsleeday xagga dambe ay inta wax ku qabsan lahayd jirta ayuha alhibba الامل في الدنيا مهلك والامل في الاخره الرحمه افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين إذن أيها الأحبة رجدوا وين كوبناتا نبي عليه الصلاة والسلام خط جاحي سيابا بدن بي وصوران علماء خط مربعة سكوير أفرقيس له دبيتنا حريق روح نحصار حريق ذاك على حريق جمو يالي dabeetana nabigu wuxuu yidhi kaasi waa bini aadamkii kaasina waa ajashiisii iskuweerkan saarane amalkiisuna waa kaa ka sii baxsan buu leeyahy waa xariiqdan ka sii baxsan iskuweerka yar وهذه الخطوط الصغار الأعراض خطوطا يريرا دنعيدا وبحضينا ومشكلات كان كل بها ليليسا فإن أخطأوا هذا نهشه هذا dad kan ka badbaada kan baa kugu dhacay dad kan ka badbaada kan baa kugu dhacay ilaahay marka u dambaysa nafta laga qabto maxaa xal ah xalku waxa weeyaan amalka jooji oo maxay sameeyo استعد ليوم القيامة أو ليوم الآخرة أو للموت ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نندل يردي كم من الصحابة أي قرب كغبت ونندل يرى عبد الله بن عمر ابن الخطاب وهذا اللي يرى في مقتبل عمره كجرة بلا وحين نقالنا انت قال لدي كواد يلا قريبي ولا يدادو عرباتي قلي ميسيد بدر يمالا قال لدي كواد ولا قريبي أحد نبي يقول كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل وضي لما حضنا يا نبي محمد إنا يربو الله الله إنك يرى يولي هذا يوحكو النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أدون كم واحد كوا هاتا سيدين غريبة سترينج بقالة صغيرة أو عابر السبيل أمامد شتك جد باية كوا هو يسوع ويلي عبد الله بن عمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيو يسوع نوح ورنشري إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح أرق ويلكاس السيدة ويلي وركي النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيفي عم بو فهمه markaasaa isagana taladiisii waxay noqotay idaa amsayt fala tantadhir as-sabah haddaad galabaysato waaga barigiisa ha sugin ka hor inaad dhiman doonto ku talagal wa idaa asbaxta fala tantadhir al-masaa haddaad dhimatana haddaad waa barisatana galabnimo ha sugin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina baray xadiidka marka la seexanaya waxa la yidhaahdo iyo marka la soo kacayo waxa la yidhaahdo markaad sii seexanaysana waxa lagu baray inaad sii tidhaahdo ilaahu naftan haddaad qabato una hariso yani waxaad ku talagelaysaa inaanay soo wada kici doonin walidalik wardi waxa lagaaga dhigay inuu kuu ahaado markaad jiifsanayso aakhire xasuusteeda inay wardi kuu ahaato
أمل كأنك تشوتشيسو ودي إلهي كبر يسوع سبحانه وتعالى إلى هدانت سوء لنفطة نهو نحرسو هذا تسوء دبو سوء لين دونتنا إلهي وحدكو إلى لسا dadka saalixiinta waxaad ku ilaalisay markaad waa bariisatana maxay dhabaal weeri waxa mahad iska leh ilaahay geeri dabadeed soo kiciyay yani chance baa la siiyay qof la weeyaan markuu seexanayay chance ka muu hubo oo dardaarma markuu waagu bariyayna wuxuu ku faraxsay in rabbigii chance siiyay oo ilaahay wuxuu ku mahadinayaa in la siiyay nolol geeri dabadeed سيدا أوجد أيها الأحبة عبد الله بن عباس بن نكويري لا تالي دبتنا نكي سجوانين يوحو كويري اغتنم 5 قبل 5 شان هرتود كغري ميسو وام حين تعضل يرضى تيددال وغيري هسو قبو هسوي دك waxay siraadaan xagga dambaad wax ka qaban doonta war xagga dambe tamartu way dhamaataa ma ad aqliyaysato عقلك وحبا ما ترى هدانو أودي فلين يسجرين أودي وحي شوكتا انت عدالنتا تهي انت عدالنتا تهي بعد وحقبان كرتا مركات قبودا عقلك كوري لكن تماري ما جرتو إذا وحقبتك حقه روتشرا سيدا وقيد بو ابن عباس وحكو لي هاي نكا كان دال يراني ماذا دا غريمي سو وحاد طاعة عبادة إيو خير سمي سكرتا انت عدالنتا يرتهي سميه انت هارد قبوبين وصحتك قبل سقمك انت عافمات قبطه حقا دنبها داد حاموسطه دي تمرك تيانا وحاد وحقب سنكر توامحي وانت عافماتك قبطه وغناك قبل فقرك انت وحيسطه انت هانت فقرنين بني آدمك انت وغني جايبه وشحيح انما بدني وهي وانت وجو بروجرام كبدني مركز توشيلن كو كوردبا بروجرامada badanaya saadaradeed baahidaada ba tira badanaysa xogaaga yar markaad haysatay programkaagu uu yariyay waxa laga yaabaa waxaad haysato dhanad bixin karto wax ka bixin kartid ibn Abbas wuxuu leeyahay isagoo xadiidka nabiga u tilmaamaya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو يعيده غناغاغا markaad wax haysato wax la bax inta aad faqrinin wa firaaqaka qabla shughlik firaaqada inta tay ninku intuu dhalinyarada yahay buu waqtigiisa leeyahay markastoo aad sii weynaato waqtigaaga waa lagu la yeelanaya bulshada kula yeelanaysa qaraabada kula yeelanaysa asxaabta kula yeelanaysa saaka markaad soo kacdo adiga xagga u socday xaggaas ay ku kaxaynaya markaad si dhalinyarada tahay xiriirkaaga bulshada dhan uu kooban yahay laba saaxiibatiin oo warsaaka iska waran xagaad maraysaad ku tiraado ayad wax xiriir leedahay xiriir kale ma lihin ولذلك وين وقتigagu juhdiisu bedela waynu amal noqda firaaqadi baad haysatay ka faa'iideyso wa hayataka qabla mawtik bu nabigu alayhi salatu wassalam ayuha alahibba amal kadari wa xirfada shaydaanku dadka ku halaago قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى آدم بهالكي لغا قال هلكا صحيح نبي آدم حاجة نظر لغا صار وحكولي ما كنت سياجيت كوارتانك شجرة الخلد إيه وملك لا يبلى إمسا الشيطان لمي وقضية كل لمي إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم بإلهير شيطان باوحو تسويل سمي وحم مهدي وحو دلالي أمل ييد الديلين وقلي أمل كعلاج كسوامحي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث ابن أبي الدنيا صار الشيخ الألباني حسن كنت المامي وحلي إن شاء الله وحينا حديث شاقنينا صحيح حسن بين شاقن نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل نبي حلي عليه الصلاة والسلام ومدن ددك يدي هوري وحيكو قوليستين
كل بانين كبد بادين يقين قلبي قود دكتي هي زهدي وين نحب الدنيا قلبي قاعدين زهدي وما هينا فقيرته زهدي وحويان وين أدونك تشعلانين هدوك سوق لك عن هذا كجرو سأوجد النبي حلي عليه الصلاة والسلام وباليقين هي بالزهد قوة ضمبنا وحي كهلاك سميا بالنبي يقولي بالبخل والأمل قعنا ضيقيه يرجو أمل بضني حديث كيكوي علي رياض الصالحين ترمذي ابن ماجه وريان كاستو الشيخ الألباني سوى ورنا يوا ضعيف لكن علماء كلا حسن يحكوا الشيخيان الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. إذن أيها الأحبة غفلة وين كبحة قفك الربين آخره والديار كروبة أمل كدير وين كبحة تمنياتك أمنيته إما إن أدوح مستحيلة تمنيس أما وح بعيد المنالة أي أمنية الله إله الله بدأ بقرآن كإلهي وقت المام مستحيل قوام حي يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وشيء مستحيلة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وبعيد المنال كيكو شيئا هذا بأمنية لفتيد الأماني أنا تكرر يطون أمانته أنت بدن والرياضة سوتشيتك qofku markuu seexdana wuu riyooda day dreaming ka waxna yiraahdaan adigoo soconaya madaxaagu inta uu shaqeynaya waxba ka buuxa in badan oo kamidi waa khuraafa waa waxaan jirin in badan oo kamidi waxa laga yaabaa khayaalaadka carruurta kale inay u eegyihiin taysaani dhiclaado saani dhac waxan baad sameeyay dalkan baad ka bixin waxa madaxu ku sheekeynaya qofku markuu soconayo in badan ina run maaha iyana waa farsamada shaydaanka oo shaydaan markuu ku ballan qaaday waxaan luminayaa in badan oo dadka ka mid ah muxuu yidhi wala udillannahum wala umanniyannahum wala aamurannahum ilaahayna wuxuu ku gabay yaciduhum wa yumanniihim wamaa yaciduhum ashaytaanu ilaa guruura wuxuu ku ballan qaaday waan lumin buu yidhi oo umniya yididiiladaas iyo riyadaasaan u samayn buu leeyahy dabeetana waxyaabahaasaan fari doonaa إلهي وحينا تلمامي يكو وركو قارون حوله صابرني قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم كوي علمي قال السيئة إلهي وحي هذين وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا قل أبا وحبا لقيم له قل أنا حولها سالقيم له نكاسي وطه قل أنا وحا لقيم له محي آخر يعملك صالحا هدبا أمانيد وحما ما ترته آخر عمل بالو ديار قروبة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا إلهي وحلي أمانيدي نماها يتأهل الكتاب كمدنا بقى هو عمل آخر السعي شقى لو ديار قروبة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها عدي آخر دونسة عدي أدونك دونسة وينك سوامرنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أولئك بين سوامر ليس له آخرين أنا وحبلهين عذاب مويان أما آخر قوة الدنيا أنا وقوة كان إرادة الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها إرادة قرى ما هي وسعى لها سعيها سعي قارة بيلاد إخلاص له وشرع وافق سنة وقارة وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن أيها الأحبة نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث الشيخ الألباني حسن كوكت المامي سنة كيسة وحصام ريح حبال دبيتنا وحولي من صاحب هذا القبر وارحبا شيء كجرة واحد عدين فلان هبل با كجرة دبيتنا وحولي رقعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم
kaa xabaasha ku jira maanta soo ma aragtaan 2 ragcadood oo salaada ayuu waxaa adduun haysataan oo dhan ka jeceliyay maanta imika markaynu halkan joognaa 2 ragcadood miyaynu adduun ka jecelnay mise nin waliba in adduun badan soo galaa buu jeceliyay ragcadda inala khaliifa ina khafiifa inala fudud hadda waxaynu isweydiinaynaa sheekh salaadii sunna iyo waxaa ka kaalay faralkii iyo shaqadii baa isqaban waayeen maxaa la yeelayaa marka wadaadka waxaa la rabaa inuu fatwoodo uu keeno si salaada loo fudaydin karo ay meesha uga baxdo shaqadu ay u noqoto noloshu waxaanay ka maarmaynin nabiguna calayhi salaatu wasalaam intuu xabaal soo dulmaray ayuu wuxuu leeyahay kaa xabaasha ku jira ragcataani axabu ilaa hada min baqiyati dunyaakum kan xabaasha ku jira 2 ragcadood baa adduun waxaa haysataan oo dhan maanta agtiisa lagaga jacayl badan yahay calaacalku marnaba wax ma taro yaa laytanii qaddamtu lixayaatii waxba ku tari mayso rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fiima tarakt ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa berri inaynu xoog uga fakarno yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha waltandur nafsun maa qadamat ligaddin wattaquu allaha in allaha khabiirun bima tacmaluun war kuwa iimaanka laga helayo alla ka cabsada baa ilaahay yidhi taqwa allah waltandur nafsun maa qadamat ligaddin baa ilaahay yidhi naf waliba ha eegto berri waxay u horumarsatay habeenkii markaad seexanayso bal xisaabta waa waxaad isweydiisaa war haddaad caawa naftu kaa baxda maxaa kaa horeeya وإلهي وحين لي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون إن كانت هدوا على لو أن لي كرة فأكون من المحسنين إن كانت دورني أدوك نوبهن إذن أيها الأحبة قرآنك مجرو بيج قرآنك كم دبان فيليا وأنا لما قضيت مدو كو أركيني ولا بدا مسألة وجبدا إلهي كتاب كيسو كهذا إن أنا ولا بدا ويرين كهذا الله قرآنكو إما إلهي بكور رما ياسفينيا وإما الآخرة ولا بدا قضيت وجبدا إلهي كتاب كيسو كيالا قرآنك اللي حدا بقول يا فرتبيتش أولي لبدا قضيت وجتر بدان لو كور رميا إما إلهي ويندي سك ورمية هي صفات كيسة هي عظمتيس هي حس كيسة أما سوح ورمية مال أنت آخرة هي خطرت دي الجنة هي النار هي أوصاف دي وحكتشرة هي قيامها هي أهواشيس هي جاري هي وحكة دمبية لبدا قضية ضم بأو بدن وحقرام كورم آدم هنا والله بدا أغير وحكها الله بن آدم هنا وحكها الله والله بدا أغير كأنه سنة ماضنا intaynu ilaahay ka warranaa iyo xuskiisa iyo dikrigiisa markaynu isu nimaadno intaynu aakhiro iyo waxa jira ka warranaa waa labada ugu yarayna waynu ka hadalno xataa mac wadaadada ku dar adduunka iyo si loo guulaysan lahaa iyo gaalka si laysaga celin lahaa baaba madaxa wareerisay laakiin aakhiro iyo rabbi waa labada qur-aanka makiga oo inta ugu badan ay ka warramayaan waa labadii uu nabi maxamed dadka ku tarbiyay waa labadii rijaalka soo saaray labadaa hadduu aadanuhu ka dhismo aakhira wuu diyaar garoobaya qofka bini aadamkii fahmo ilaahay iyo weynidiisa subxaanahu wa tacaala iyo xuska uu xaqa u leeyahay cadamadiisa iyo hadduu garto inuu ishortaagi doono oo uu xisaabin doono oo maalina ay jirto rabbiga aad hortegayso waad ku xisaabtamaysa waad diyaar garoobaysaa maanta qolada ardada ahi marka la yidhaahdo usbuuca dambe waa imtixaankii maxaa yeeshaan ma seexataan ma istiraadaan insha allah waad naragaato waad gudbi doonta yani waxaad warwar baad bilowdaa fakadalik qofka mu'minka ahi wuxuu ogyahay imtixaan inuu ku jiro hadda bayjajkiisa inaad qorayso waa baryo kasta waa waraaq imtixaano lagu dhiibay waa kastoo kuu barya waa waraaq cusub oo imtixaano lagu dhiibay oo waxaad ku qoraysaa ama naar ay ku geynayaan
ama janno ay ku geynayaan. waxaan ku soo koobayaa markaa hadalku inuu koobnaadaabaa roone. aakhiraan u diyaargarowno. ilaahayna qur-aanka in badan buu inagu farayaa inaynu u diyaargarowno, aakhiraan u diyaargarowno. waxaynuu nimi duulaan aakhiraba ogeyn, walidaalik baynu geediga ku darsannay. intay ka fekerayeen baynu ka fikernay markaa. sidee shaqo loo helaa, sidee jaacad loo dhigtaa, sidee daar loo dhistaa, sidee guriga loo iibsadaa, sidee gaadhi loo iibsadaa. inta iyagu ka fekerayeen manay ahayn qof aakhire ka fekeraya, qof adduun ka fekeraya inay isku in ama isku aragti ama isku waxay noqdaan. marnaba macquul ma yahay. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.